madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si diiran waxa ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Garowe madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku-xigeenka Puntland wasiiro xildhibaano heer dowlad goboleed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada safarka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Puntland ayaa ku qotoma ukurgelida xaaladda abaareed ee deegaanada Puntland dardargelinta dib u heshiisiinta xoojinta wada shaqaynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dhageysiga talooyinka la xiriira dowladnimada ay qabaan bulshada Puntland taas oo asaas u ah hiigsiga madaxweynaha ee Soomaaliya heshiisa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulamo la qaadanaya madaxda dowlad goboleedka Puntland waxgaradka isimada ganacsatada dhalinyarada haweenka iyo culimada si uu dul istaago xaaladda bulshada Puntland baahiyaha ay qabaan doorkooda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta dowladnimada wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiir dowlaha madaxtooyada la taliyaasha madaxweynaha arrimaha bulshada